السلام عليكم صاحبي kusoo dhawaada 5 daqiiqo fadlan haddaad halka ku cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaallo ku saabsan filimka habboon iyo weliba muuqaallo kale oo xiiso leh dad fara badan ayaa waxay soo weydiiyeen arrimo ku saabsan aktarka caanka ah ee jilaaga ka ah ama atooraha ka ah filimka sida weyn Soomaalidu u xiiseyso ee lagu naanayso habboon aktarkan dad fara badan waxa ay xiiseynayaan inay ogaadaan arrimo ku saabsan noloshiisa sida inuu yahay xaas da'diisa waxa uu qabto iyo weliba guud ahaanba noloshiisa haddaba halkan waxaan ku falanqayn doonaa qaybo ka mid ah arrimahaasi haddii aad doonaysid qaybo kaleeto waxaad ka soo helaysaa channelkan dad fara badan ayaa waxa ay ka heleen habjiliinka aktarkan sidaasi darteed waxa ay dad badan xiiseynayaan inay ogaadaan noloshiisa taasi waa wax caadi ah in dadku marka ay qof xiiseeya isla markaasina ka helaan shaqo uu qabanayo ay isku dayaan inay wax ka ogaadaan noloshiisa waa wax caadi ah arrimahani waxa ay khuseeyaan qofka oo xiiseynaya inuu wax badan ka ogaado qofka uu la dhacay shaqada uu qabtay ama waxa uu yahay haddaba dadka isoo weydiiyey in Jamaal uu xaas leeyahay jawaabtu waxa weeye Jamaal waxa uu leeyahay xaas Allah isu barakeeyo xaaskiisuna waxa uu degan oo ka tirsan gobolada waabari ee qaranka Jamaal iyo xaaskiisa xaawo degan waxa ay isu dhaleen caruur ilaahay ha soo koriyo ha noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda anfaca aktarkan oo hore waraysi u bixiyay waxa uu cadeeyay in uu jecel yahay in waqti la qaato caruurtiisa iyo qoyskiisa waa waqtiga uu firaaqada leeyahay inta kaleetona waxa uu ku mashquulsan yahay ama uu ku mashquulaa in uu noloshiisa dhiso sidoo kaleeto waxa uu aktarkani sheegay inuu jecel yahay aktarnimada sidoo kaleetona uu fanaannimada u soo galay baashaal iyo in uu ku qaato waqti qurux badan aktarkan Jamaal dad fara badan ayaa ka daba dhacay waxa uu jecel yahay aktarnimada iyo inuu ahaado jiraa dadka Soomaaliyeed badankood waxa ay ku sifeeyeen inuu yahay aktarkii ugu saameynta badnaa ee Soomaalidu yeelato gaar ahaanna marka uu yimaado filimka habboon oo ah filim si cajiib ah loo qaabeeyay isla markaasina la geliyay waqti fara badan dadku waxa ay qiyaasayaan in filimkani uu yahay kii ugu saameynta badnaa ee Soomaali samayso haddaba haddii aad doonaysid muuqaallo noocan oo kaleeta ah oo xiiso badan fadlan halkan subscribe saar si aad u heshid muuqaaladii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimahaasi sidoo kaleeto haddii aad doonaysid arrimo kaleeto oo xiiso badan ku soo qor qaybta commentiga ee hoose si aanu u siino waqti isla markaasina ay u noqdaan barnaamijyada xiga ee aanu soo gudbin doono marka aanu fursad u helno mahadsanidin dhammaantiin